بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتا إن داوانيسا أما إن دقيسانيسا meel kastood naga dhegaysanaysaan ama aad naga daawanaysaan waxaan idin leenahay habeen wanaagsan aniga xilligan habeen bay noo tahay waa wariyaha.com oo barnaamij ka mid ah barnaamijyadii aan saxaafadda inaan kusoo gudbino ama aan dadka uga faa'iideyno aan ku ballansanayn muddooyinka dambeba codsiyo kala duwan ayaan helaynay wixii ka dambeeyay markii aan barnaamij ka sameynay waxa loo yaqaano Adobe Edition-ka oo ah barnaamij ay saxafiyiintu wax ku duubaan ama ay ku shaqaystaan sidoo kalena fanaaniinta qudhooda ay isticmaalaan maanta waxaan jeclahay inaan idiin faa'iideeyo cashir bilow ah oo dadka marka bilowga ah aan ugu talagalnay Adobe hadda computerka nooguma jiro laakiin cool edit oo markaas kamid ah barnaamijyada lagu duubo ayaan soo qaadanaynaa ama haddaan si kale u dhahdo cool edit pro oo aan barnaamijka sida wax loogu duubo cashir bilow ah sida ujeedaan waxba kama duwana qaab ahaan Adobe-ga marka waa isla sidii qaybta wax lagu duubayo oo kale ayuu leeyahay waxa loogu talagalay in codadka lagu jarjaro barnaamijyada lagu duubo haddii si toos ah loogu xiro mixerka idaacadda si toos ayaa uu codka u duubayaa marka barnaamijka inta badan waa la soo download gareystaa haddii aad heli kartaan waad gadan kartaa kadib marka computerka ku shubo kadibna soo kici barnaamijka deetana sidaan hadda aad u jeedid oo kale ayaa hortaada imaan doonta kadib waxaad samaynaysaa tallaabada meeshaas kore qaybahaas kore waxaa ku qoran file edit view effects iyo waxyaabahaas oo dhan qaybtaas ku wada qoran oo kale qaybta ugu badan la isticmaalo horta file waa meesha markasta aadan ka maarmaynin oo kasoo qaad waxa ku jirta new oo ah file cusub inaad samaysid oo kale sida hadda aniga aan soo iriyo kale hadda mar labaad ku celiyo new halkaas lambaradaas ku soo baxaya meeshaas laba qaybood oo kala saar leedahay meelna waa mono meelna waa stereo marka markasta waxa fiican stereo ayaa la isticmaalaa lambarkaasna 44 hal eber sidiisu noo ahaanaya okay aan leedahay kadib marka barxadaas ay imaanaysaa barxadaas marka timaadid sidoo kale file waxa ku jira marka aad rabto in cod ku duuban oo macnaha ka soo qaad siyaasi soo wareysata ama fanaan oo kale codkiisii oo kale rabtaa codku wuxuu ku saareen desktop-ka oo kale waa mp3 kadibna file aad leedahay marka barnaamijku furto waxa leedahay open as ku fanaysa computerka uu ku geeyna desktop-ka computerkayga wax kaasa deetana barnaamijkan kaliya ku soo siinaya haddii rabtid xataa barnaamijka inta dooratid ka soo qaad wax meesha kugu jiro kale barnaamijka inta dooratid aad maaragtay dhageysan kartaa inuu isaga yahay ilaa waxa laga yaabaa in codad badan ay kugu jiraan marka si aad u ogaato in codkani uu yahay codka aad rabtay play aad leedahay kadibna waa ciyaaraya waad maqlaysaa tusaale markaas kadib haddana waxa marka xaqiijiso ayaad open leedahay kadibna halkaan uu ku soo dhigayaa qaybtan ayuu ku soo dhigayaa barnaamijka halkaas uu ku soo dhigaa marka halkaan uu ku soo dhigo barnaamijyada codadka oo aad rabtid oo dhan halkaan ay soo safmayaan ka rabtad kali ku siinaya marka saa u baraweysid hadda meeshaan oo kale codaan noogu jira halkaan oo kale muusiga noogu jira haddaan play dhaho waa muusiga oo kale markasta track waa midka markasta oo aad magacaadan u sameyn haddii aadan magac u yeelin ama aadan magacaabin waxa ku soo baxay track haddii magacii track 1 track 2 ayuu la baxayaa haddii laakiin aad magacaawdo magacii ku soo baxay oo barnaamijku ugu qornaa hadda marka file aan ku laabano new aan dhahno studio noo yahay 44 hal eber noo yahay okay aan ku leeyahay barxadii aan nimid waxa kale oo file ku jira barnaamijka markaad wax duubto sida u save gareynayso file ayaad leedahay save as marka save as halkaas ku qoranta
save as oo kale kaliya ku siinaysaa kadibna barnaamijku ku diyaarsan yahay magaca uu bixinaysaa haddaad qaybtaas hoose waxaad ka dooranaysaa faylka qaybta waxa aad rabto inuu noqdo mp3 miya noocyadaas tirada badan oo dhan mp3 waa kaasa halkaas uu ku jira marka ka dooro kadibna save dhaho meel aad taqaanid ku save garayso kan ku xiga waa edit inta badan lama isticmaalo ma marka qaar oo kale markaad copy to new day sidoo kale waxyaabo yar laga isticmaalaa qaybtaas kale waa mar dhan baan u imaan doonaa qaybahan oo dhan waa qaybo muhiim ah oo muhiim u ah macnaha codka effectiga ku sameynaysid ama maaragtay sharqanta ama qurxinta codka kale ayaa maaragtay idan loogu talagalay hadda marka waxaan rabnaa inaan tijaabino bal codkeena file uu noo yahay marka si aan u ogaano in microphone-kaygu uu shaqeynayo iyo inta uu shaqeynayo in maaragtay cod fasiix uu duubayo option aad imaanaysaa meeshaas ay ku qoran tahay options kadibna waxaad meesha ay ku qoran tahay monitor record level meesha ku qoran tahay ama monitor record level halkaas ku dhufanaysaa marka halka waxa ka soo baxaya codkaygii oo boodiisa uma jeedo waxa sadda dhaqaaqaya waa codka hadda aan aniga ku hadlayo oo kale kadibna waxaan leenahay record wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in maanta halkaasi shir muhiim ah ay isugu yimaadeen qoliyaha saxaafadda kadibna waan joojinaynaa markaan joojino marka waxaan rabnaa spacekaas inaan iska bixino oo horey uu noogu bilowdo highlight saar kadibna delete highlight delete bal hadda aan shido codkii hadda aan duubay wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in maanta halkaasi shir muhiim ah ay isugu yimaadeen qoliyaha saxaafadda kadibna marka qaybtaas kalena waa jaraynaa intaas waa markii codkii barnaamijka wixii aan duubtay intaas ay noqotay marka tusaale ahaan hadda intaas markaan duubtay oon ogaaday inuu wixii ii dhammaystiran yihiin failaan tagayaa save asaan leeyahay waan hubinayaa inuu codku wuxuu ii yahay mp3 aan geysanayaa mp3 kadibna waxaan ku duubanayaa cod kadibna desktopkan ku save garayste okay aan iska leeyakas hadda marka desktopka imow play double click si play dheh codkiya soo kacaya aan dhageysano wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in maanta halkaasi shir muhiim ah ay isugu yimaadeen qoliyaha saxaafadda waxaan filayaa in qaybtaas cashirka koobaad bilawga ah dadka bilawga aadka u hayaan ugu talagalnaa cashirkan haddii aad wax badan ka taqaano ama aad ku firfircoon tahayna dabcan qaybaha dambe waan sii socon doonaa waxyaabahan qaybahan dhan waan sharxi doonaa marka inta haynoo joogo cashirkeena caawa aan ku qaadanaynay barnaamijka Adobe aan iraahdee barnaamijka kan Adobe-ga iyo sidaan idin sheegaba Cool Edit Pro-ga waa isku mid marka inta aan ku soo